markii ugu horeysay markii uu bilowday dagaalka gobolka Tigray bishii hore ayaa maanta lagu wadaa caasimadda gobolkaasi shaqadii gargaarka ugu horeysay ka socota hay'adaha dawliga inay gaaraan iyagoo geeyay agab si weyn ugu baahi qabeen dadkaasi sida daawooyinka sidaasina waxaa maanta sheegay hay'adda laanqeyrta caalamiga ICRC oo sheegtay in maanta dadka gobolka loo qaybin doono gargaarkaasi gaaray dawladdu ayaa xadiday gelitaanka gobolka kadib markii ciidamadeedu xoogaga gobolkaasi dagaal ku dhexmaray 4 November colaadda ka taagan wadanka labaad ee ugu dadka badan qaaradda Afrika ayaa la roosay inay ku dhintaan kumanaan qof ay ku barakaceen ku dhawaad 950 kun oo qofood qaramada hay'adaha kale ayaa awoodin inay gargaar gaarsiiyaan gobolka iyadoo dawladdu ay sheegtay inay u dirtay shaqooyinka isugu jira raashin iyo waliba agabyo kale kulaya gargaar siday oo ka koobnay 7 gaadiid xamuulka ayaa gaaray magaalada Mekelle waxaana si wada jir ah u soo agaasimay guddiga laanqeyrta caalamiga ICRC waliba laanqeyrta ee Ethiopia sida ay sheegtay hay'adda ICRC saraakiil u hadashay ICRC ayaa sheegtay in arrimaha caafimaadka magaalada Mekelle ay uryaameen kadib markii daawooyinka agab kale ee caafimaadka sida kolofosii qalliin ay dhamaadeen isbitaalka Aydra oo ah isbitaalka ugu weyn gobolka waxaa lagu qasbay in la xiro qaybtiisa daryeelka degdega ah ee saalada qaliinka sababo la xiriira yaraanta daawooyinka dhaqaatiirta kalkaaliyaasha waxay toddobaadyo ka shaqeynayeen iyagoo aan helin agab biyo iyo waliba koronto la'aan ayuu yiri Patrick Yusuf oo ah agaasimaha ICRC Afrika shaqada caafimaadka waxay siin doontaa kayd cusub waxayna daaweyn doontaa bukaanno halkaasi ku jira ay tiri dawladdu waxay sheegtay in dagaal ku jibisay xoogaga dacadda u ah markii horeba gobolka ka talin jiray TPLF waxaana heshiis la gaaray qaramada midoobay si loogu ogolaado gargaarka inuu gaaro gobolka Tigray hay'adda Danish Refugee Council ayaa shaaca ka qaadanay dhimashada 3 waardiye ee gobolka guddiga laanqeyrta badbaadinta IRC ay ku dhawaaqday dhimashada mid ka mid ah shaqaalaheeda lagu dilay waxaana ku taala gobolkaasi hay'adda cuntada adduunka ee Mareykanka ee loo gaabiyo FDA ayaa ku dhawaaqday in arrintan ay tahay laakiin ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia ayaa sheegay in dib loo furay isgaarsiintii waliba internetka magaalooyinka dalka gaar ahaan gobolka Tigray oo sheegay inuu daaw xirnaa kadib markii dagaalka la soo gabagabeeyay ra'iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay loo baahan yahay in dadku ay dib ugu soo laabtaan guryahoodii isla markaana ay qaataan waxyaabaha abka iyo raashinka kadibna waxa uu sheegay dadka Tigrayga ah ee gobolka ku dhashay inaan waxba lagu sameyn doono marka laga reebo dadku iyaga sida aadka dawladda u doonayso xoogaga hogaaminta TPLF ilaa hadda meel ay ku sugan aan loogeyn